daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada waraysi aanu la yeelanayno guuleed maxamed ismaaciil oo ah madaxa dhinaca ammaanka u qaabilsanaa madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa kaasi oo shaqada looga joojiyay amaba looga eriyay arrin la xiriirta in barta uu ku leeyay facebookiisa uu ku taageeray siyaasiga maxamuud xaashi cabdi haddaba warkaas sida uu u jiro waxa arinta keenay waxa istuudiyaha telefishinka aanu ku martiqaadnay oo martiqaadkaana naga aqbalay guuleed maxamed ismaaciil marka hore soo dhawow arintana maxay ku timid horta badriyo mahadsantahay walaal adiga TV-ga San TV-ga aad baad mahadsantiin arintana way jirtaa waa arin xaqiiqo ah 16 bisha kalinkii dambe anigoo sideedii shaqadeedii ku jira oo shaqadeedii waajibaadkeedii shaqo gudanaya waxa ay riboorka gudihiisa warqadii u keenay inaan shaqaala iyadoo arintaas ay baalmarsan tahay sharciga inaan shaqaalaayo ila mid ama iga hooseeya in warqad laygu soo dhiibo qofka shaqaalihii hadduu dambi gala ama uu khalad sameeyo wuxuu xaq u leeyahay in maamulkiisu yeelaan warqadda siiyaan inaan shaqaalaa warqadda laygu soo dhiibay wuu keenay warqadda waxa ku taagan in shaqada layga joojiyay markii aan maamulkii la xidhan kul shaqada maxay iga joojiseen waxay si caadi u sheegeen inaan barteeda Facebook ku difaacay ama ku taageeray qofkii isagoo dareenkiisana xaq u leh oo dastuurku uu xaq iyo damaanad siinayo in qofkiisu aragtidiisa uu ka cabiri karo hadal suugaan iyadoo wax qalaama ay fadadaan geysanayn inaan taageeray maxamuud xaashi ay si caadi ugu sheegeen laakiin warqadda kuma taalo laakiin warqadda waxa ku taagan shaqada layga joojiyay arrintaasna waxaan arkayaa gaf iyo sharci darro arrintaasina way jirtaa waxaad sheegtay in lagaaga joojiyay taageerid aad taageertay siyaasiga maxamuud xaashi ma jirtaa horta arrintaas way jirtaa in arrintaa layga joojiyey si cadna way igu sheegeen markii aan weydiiyey waana ii sheegeen inaan barteeda Facebooka ku qoray ama maxamuud taageertay maxamuud xaashi taageeray waana jirtaa weli ilaa imika Facebookayga waad ka heli kartaa marka laga imaado inaad ahayd maamulihii dhinaca ammaanka madaarkaas u qaabilsanaa haddana waad ogtahay shaqaalaha nidaam ayaa u yaal Somaliland dhawaan hay'adda shaqaaluhu way hadashay in cid aanay cid taageeri karin maadaama ay shaqaale yihiin oo aanay ku dhaxmilmi karin markaasoo adigu shaqadaadii khalkhal kuma abuurin horta badrow way jirtaa arinteedana horta way ku horeysay intii hay'adda shaqaaluhu hadashay shaacisay arrintanna maanta wax bilaabmay maaha barteeda Facebook madaxweynaha hadda xilka haya Muuse Biixi Cabdi markii uu kaambeega ku jiray barteeda Facebook ayaan ugu ololeynayay aan ka taageerayay oon aragtideeda ku baahinay ku muujinay way ugu hambaliyeenay maanta kuwa shaqadayga eriyaya amba dambigayga ka dhigaya dad kale ila mid ah hadda way jiraan oo dad kale oo siyaasiyiin soo dhigayo taageersan oo la arka xisbiga kulmiyeen mid kamid dadkaas uu ku haboon yahay inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga in wax mucaaradada ma sameeyay cid maan dagaal cid maan weerarin waxa kaliya aan sheegay waxa weeyaan walaal inaan u arkay maxamuud xaashi uu yahay qofku haboon gudoomiyaha xisbiga kulmiye siyaasigaas hadda ku taageertay Facebooka ayaa markii horena shaqadan qoray arrintaas ayaa hadda loo daba socdaa arrinta maxaad ayda ka leedahay dadrow haddana arrinta dib ugu yaranaado shaqada si official loo shaaciyay fursad shaqo oo ka soo baxday hay'adda duulista madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliya 2011 safaaradda Ingiriiska ayaa imtixaan laga qaaday nin Dave looga jiray baa laga qaaday aniga iyo kamaanta shaqadayga imtixaanka waan wada galay aniga iyo kamaanta shaqadayga eriya shaarka madaxweynaha iyo adeegsanaya isku haybtayeen madaxweynaha waan wada galay imtixaanka waan ku dhacay maxamuud xaashi shaqadiisa ma jirto nidaam sifa sharci oo shaqaalihii waqtiga ay la joogeen way joogaan 250 shaqaalaha baan imtixaanka ku galnay 7 maan ka soo baxnay 250 intii soo baxday ma inta dhacday ku jiray ninka maanta warqadayso qoraya ma igu eriyay doonayeen shaqadayga eriyo inkastoo telefishan ahaan aan ugu sheegi karin imtixaanka cidii baasta iyo cidii dhacday haddaan si arrinta ka gudubno in waraaqda ku saxeexan waxa la leeyahay maareeyihii guud ee madaarada Soomaaliland kuma saxeexna yaa ku saxeexan waraaqda shaqada lagaaga joojiyay warqaddu waa tan oo hortaala waxa ku saxeexan maamulaha madaarka waxa sharci darro ah inaan maareeyihii hay'adda duulista u kulahay warqadda waxa sharci darro ah inaan agaasimiye guud ee wasaaraddeeda ama hay'addeeda aan u kulahayn waa laba waxa warqadan oo kaliya oo ay ka timid waa maamulaha iyo maamul ku-xigeenka iyaga soo geysiyay maamulaha oo ogeysiinaya maamul ku-xigeenkiisu wuxuu shaqada iga radisiyay aniga shaqada saasaa ku cad sifa sharciyana maaha
hay-adda shaqaalaha may soo marin la iigama yeelin dacwad hay-adda shaqaaluhu iimay keenin digniin la iima keenin meel arrinta laga hadal hayo warqadaasaan kuwa helay waad ogtay hadda siyaasiga aad adigu bartaada facebooka ku taageerto waa siyaasi xilka uu doonaya ay tahay guddoominimada xisbiga kulmiye arrintaana waad ogtay sida weyn ee layskugu haysta in arrin khilaaf ka taagay oo arrin aada u culus ay tahay marka arrin caynkaasa adoo madaar jooga oo shaqaalaha in aad gasho soo maaha wax markii horeba aad adigu isku tala gashay aanad filaysayn in lagu yiri qofku ma public ahaado ama private ahaado dariiqa la mara buu leeyahay de qofka bini'aadamka aragti buu leeyahay waxbuu sheegi karaa cid hadduuna cayn cidna aflagaadin oo hadal yidhi ama uu bartiisa facebooka wax ku qoray dee maaha mid lagu go-aan qaadan karo 8 sano iyo bar baan shaqaynayey shaqo adag baan qaranka u hayey waxaan ka shaqaynayey meesha ugu adag ee wax asaasisan maanta qarankeena diyaaradahaasoo dhan amnigoodan mas-uul ka ahaa taa micnaheedu ma aha inaan hadal aan idhi aan 8 sano iyo barkaa wixii aan qarankayga gashanayey aan ku waayi karo saxna ma aha dad kale oo si kale u dhigaya waxay leeyihiin in guuleed dhowr jeer ayaa maamulka iyo mas-uuliyiinta madaarku u digeen oo ay arrintaasi uga digeen in wax siyaasada uu ka hadlo isna uu iska dhagamariyey dadka sidaa oran kara amaba warka caynkaas soo baxaya maxaad ka leedahay arrintaa waxba kama jiraan cid aan ka wada hadalnay arrintan ma jirto cid iila timid ma jirto cid fikir iga siisay ma jirto imika maxaa kuu xiga waad og tahay waxaa shaqadii de waa lagaa joojiyey oo sidaa imika cad waraaqda shaqadii waa lagaa joojiyey halkee hadda kuu xigta waxay xigtaa niman dhalinyaraayo waxbartay baynu nahay dadka dee lagu tacadiyi kara waa qofka aan waxba baran ama aan dee garanay sharciga iyo shuruucda waddanka u yaalo waxaan dacwad toosa ka furanaya maxkamadda waxaan gudbinayaa dacwadayda kiiskaasna maxkamaddaan gudbin doonaa waxaanan ku qanacsanahay xukunka maxkamadayda iga soo baxay 8 sano iyo badh waxaan ka shaqaynayey xuquuqdeydii xaqeydii xaq baanu leeyahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha systemka waan marayaa hay-adda shaqaalahana waan marayaa maxkamadda ratoos baan tegayaa dacwadeyda waan gudbisanayaa waan akhrisanayaa gartana waan ku go-aa maxkamadiyo ay soo go-aamiyaan hadda telefishinka wararka soo gaadhay waxay sheegayaan inaad shaqaalo badan arrintan culayska ee adiga lagugu saaray ee shaqadii lagaaga joojiyay iyagana qaar kalena ku dhacday ma adigu ma shaqada lagaa joojiyey mise shaqaalo kalena way jiraan bedrow way jiraan shaqaalo kalena oo qaar liiskooda yaal hay-adda shaqaalaha way jiraan oo la dacweeyey oo qaarkooda la socdo la hadiday ama loo cagajugleeyay hadday mar dambe arrimaha ka hadlaan ama ay siyaasiga taageeraan in tallaabo laga qaadi doono iminkana waxaaba la iisoo sheegayaa inantii xafiiskayga HR-ka shaqaalaha iyada lafteeduna ay shaqadii ka soo baxday inkastoona xaqiijin karin laakiin shaqadii laga soo saaray iyadana oo iyadana shaqadii laga joojiyey baa la ii sheegayaa waa arrimo noocaas way badan yihiin dad badan oo telefoon igula soo xidhiidho way jiraan dhibaatadii haysata cabanaya ujeeddada ugu weyn aan u hadlaya waxaa ka mid ah inaan qof ila mida aan la dulmiyin lagu tacadiyin in dadka inta aan hadli karayn aan u hadalno oon gaarsiino ummadda inaan shaqaalaha dowladda la kala lahayn inaan qofna lagu dulmiyi karin shaarka madaxweynaha iyo waxaan awood ka sii haystaa madaxweynaha inaan qofna lagu dulmiyi karin ayaan ujeedinaynaa madaxweynahana waan u sheegaynaa shaqaalaha badan oo tacadi haystaa wuu jiraa qofka aragtidiisa uu sheegi karaa ku madaxweynaha taageersan ku cid kala taageersan qofka bini'aadamka waa dastuurka iyo muwaadinka dastuurka xuquuqda uu dastuurku leeyahay uu ku leeyahay ayuu kala sameeyahay dadka muwaadiniinta kale goo dhaweyd waxaad sheegtay oo aad intayn wareyskeena ku jirna aad sheegtay inay jiraan cid ay madaxweynaha isku faamili dhow yihiin oo arrintiinana ku lug leh marka bal kuwaas ma noo cadday kartaa cidda ay yihiin haddana mashruuc ayagana waxa xukuma maamul ku-xigeenka madaarka oo ka hooseeya maamulaha madaarka halkaa waa dareemi karaysaa horta culeyska ka jira maamulihii oo jooga in mashruucii amniga iyo baarkinka uu maamulo maamul ku-xigeenka madaarku halkaa waa dareemi kartaa khaladka ka jira inankaa maamul ku-xigeenka madaarka ah oo ay isku hay hoose yihiin madaxweynaha axmed carab baa laydhaha wuxuu adeegsanayaa shaarka madaxweynaha waxa uu tegay hay-adda shaqaalaha isagoo ay ku limaan yihiin barisaab ku-xigeenka khadar baaluud arrintaas waa arrin loo noqon doono oo khalad ah in dee hal qof oo shaksiya oo shaqaale dowladyada si taarikada oo cad intaasoo qof oo isku haybi ay tallaabo inay ku qaadaan damcaan ama ay shaqadiisa ku weeraraan ay damcaan wuxuu maamulada sacad igu sheegay in iyo tiim hay-adda shaqaalaha ka shaqeeya oo aan damcay bari inaan arrintaa ka xoog doono xuuraamo waxay sacad igu sheegeen xogaayona telefoon kula soo hadlay labadaa nina liiska sideen ninka xogayaha oo ayaa xogeeyaha madaxweynuhu inuu la soo xidhiidhay way ii sheegeen labadaa nina inay liiska sideen oo ay iyagu haayeen kuwii saxeexay qoray iyo gudbiyey arrintaydan
ay ahaayeen sifa sharciyana may marin maamuluhuna afkiisu iga caddeeyeen inankaa maamul ku-xigeenkaaye dadkaa kalagala soo xidhiidheen madaxweynaha dad ay isku deegaan yihiin ayaa arrinkaygan ka dambeeya ma la soran karaa markii guuleed khalad uu galay ayuu dhinaca beelaynayaa amaba arrintaa ku xoqaya maxaad arrintaa ka leedahay haddii aan khalad galay ama aan dembi galay ummadda reer somaliland way ku mahadsan yihin way ii hiliyeen dulmigana ma jecla ha la soo gudbiyo ha lala wadaago ummadda khaladka iyo dembiga aan galay amba shaqada lagaga joojiyeen sameeyey haddana arrintaa ay sheegaya waxba ka jirin iyagu ha isku difaacaan oo ha sheegaan dembiga iyo khaladka shaqada laga saaray laga joojiyey waana kuugu celinaya mar labaad waxaan tegaya maxkamadda sifa sharciyaanan u maraya waanan dacwoonaya ugu dambayntii wakti dheer ayaad soo joogtay madaarka caalamiga ee cigaal maantana waad macasalaamaysay sidaa dee maamulka madaarku ay sheegeen shaqadii way kaa joojiyeen maxaad leedahay madaxweynaha somalilan iyo weliba dad badan oo baraha bulshada kaa taageeray labadaas maxaad fariimahooga aada u dirayso ay tahay dadka reer somaliland gubta waan u mahadnaqayaa sida caqiidada leh ay arrinteeda uga dhidiyeen ay u difaaceen ay dulmigana waa dad neceb waa dad aan jeclayn qof la dulmiyo waana dad garab istaaga cidda la dulmiyo waanan ku ogaa waan u mahadnaqayaa qof kasta oo reer somaliland arrintaas ka damqaday si gaara madaxweyne waxaan kuu leeyahay shaqaalaha duulista gaar ahaan waaxda amniga jooga dulmi badan baa haysta oo aan laba iyo markaaga taaban karin mas-uulbaanka ahaa meesha waan garanayaa shaqaalahaasi xaqoodii waa ka maqan yahay sidii loola wareegay ilaa hadda xaqoodii ma hayaan fasaxoodii waa ka maqan yahay madaxweyne arrintaa inaad guddi u saarto mashruucaas amniga shaqaale hoosaad yaryar oo aan experience u lahayn oo aan khibrad u lahayn ayaa gacanta ku haya arrintaa madaxweyne waa arrin miisaan culus in la gaadho oo arrintaa laga howlgalo madaxweyne ayaan taladaa ku bixinayaa daawadayaal kaasi waxa uu ahaa guuleed maxamed ismaaciil madaxii hore ee amniga madaarka cigaal ee hargeysa waraysiga aan kala yeelanayay shaqada laga joojiyey ayaa intaa noogu eeg aad iyo aad ayaan mar kale kaaga mahadnaqaya sida aad noogu timid intaynu mar dambe daawadayaal waraysi ka lamida kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgeliyo